في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد haddii lagu weydiiyo su'aasha ah yaa kula wanaagsan hantida iyo cilmiga waxaan filayaa inaad uga jawaabi lahayd cilmiga ayaa ka wanaagsan maalka maya maalka ayaa ka wanaagsan cilmiga haddaba kuma jeclaan lahayd inuu kaaga jawaabo su'aashan inta aan lagu jawaabin waad ku mahadsan tahay kamid ahaanshaha page-ka iyo channel-ka Yaya Group haddii aadan kamid ahaynna soo dhawow kuna soo dhawow jawaabta su'aashan نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها سيدنا علي بن أبي طالب الله كرالي أهادي أيا لويدي سؤاشا علي يو أقونت ميا وناكسن مسيحانتida سيدنا علي الله كرالي أهادي waxa uu ugu jawaabay aqoonta ayaa ka wanaagsan maalka ama hantida waxa uu ku sababeeyay sababahan soo socda cilmigu waa dhaxalka nabiyada maalkuna waa dhaxalka qaaruun haamaan iyo fircoon maalka adiga ayaa ilaalinayo laakiin cilmiga asaga ayaa ku ilaalin doona hantiilaha waxa uu leeyahay cadow fara badan laakiin caalimka waxa u sugnaaday saaxiibo aad u fara badan maalka haddii aad isticmaasho wuu nusqaamaa laakiin cilmiga uu ku kordhaa isticmaalka hantiilaha waxaa loogu yeeraa magacyo aad u foolxun sida baqiil iyo wixii la mid ah laakiin caalimka waxaa loogu yeeraa magacyo aad u wanaagsan maalka ama hantida waxaa looga baqaa in la xado laakiin cilmiga loogama baqaayo in la xado maalqabeenku waxaa la marin xisaab aad iyo aad u adag maalinta qiyaamaha halka caalimku ku shafeeci doono walaalihiis maalintaas maalku qalbiga ayuu dilaa halka cilmigu uu nuuriyo qalbiga allah ka raali noqdee cali bin abi talib haddaba waan filayaa in cilmigu ka wanaagsan yahay maalka waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan waa inoo muuqaalo kale insha Allah ta'ala